السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Bill of Quantity Preparation lesson 22. lesson waxaynu kusoo qaadan doonaa waxaynu ka shaqeyn doonaa maanta qalamyadii birahoogii baynu ka shaqeynaynaa. Hadda ka hor ama lesson ka horeeyay inay ka soo shaqeynay birihii beamka ahaa. lesson ka sii horeeyay inay ka soo shaqeynay biraha meshka ee yani ground floor kala dhigayo qaabka tirooyinkooda iyo waxyaabaha la xisaabiyo. Kii ka sii horeeyay inay footing bed, footing column birahoogii ka soo shaqeynay. Okay. waxaa tabisay oo yani maqnaa lesson ka horeeyay hadii aan ku noqono baad schedule-keeni waxaad arkaysaa in xaggan inoogu jiro wax istiraabkana way naqaanaa bartii isku haysay biraha ee staffka la dhahayay tiradoodii iyo inta xabay noqonayso meter lengthkeedii iyo kg-geedii kamayna soo shaqeyn. kaliya waxaan ka soo shaqeynay birihii caadiga ahaa oo top bar iyo bottom bar aynu kala saarnay. kuwii xagii maxaan dhahay birihii kuwan oo kale for example beamka axis 1 2 3 madama iyagu overlap lahayn inagii u kala saarnay top left top right iyo bottom saddex waynagii maxaan dhahay jeer diiwaan gelinay cabrada xaan ku qoran dib lengthkooga iyo meter maxaan dhahay soo saarnay inagoo isticmaalay birta number 12 topkuna ay saddex xab ahaayeen bottomkuna 12 number 12 in isticmaalay sidoo kale laba xab ay ahaayeen. waynagii top beamka isku darnay assignment farqiga u dhaxeeyna oo ahaa kiliyata in top beamka xaga grade beamku saddex xab ka galayeen in isaga laba galayaan sidoo kalena maxaan dhahay dimensionskiisuna oo 20 by 20 yahay sida drawingiga inooga muuqata. hadii aan dib ugu noqono waxa taqaanaa in grade beamkeenu uu ahaa widthgiisu 20 dhererkiisuna 15 cm ahaa xaga beamka caadigu oo yani blocketiga uu leeyahay dherer ahaana oo 20 cm ahaa ayaa taqaanaa. waakan for example beamka xaga uu galay ama running over uu sameyn doono isa loo gelin doono columnka yani topkiisi xaragta in 20 cm tahay. then maxay xaga ka ogaanina in istiraabkan oo kale maadaama 20 by 20 yahay birta inta loo jarayo marka concrete cover laga jaro concrete cover maxaa lahaa inta yar baa la dhahaa intaas. for example hadii aan calaamadayn karo ama aan ku tusi karo xaga intaas waa intii shubku galay marka birtii oo kale sidan baa loo xiri. marka waxa la sameeyaa birta hadii imika yani shubkaaga ogaanaysa marka koobaad shubkaagu haduu yahay for example 20 by 20 each side 20 by 20 waxa ka dhiganta 20 cm iyo 20 cm each side waxa ka jari doontaa 2.5 cm iyo 2.5 cm oo loogu talagalay inuu shubku galo. marka waxa ka dhigan tahay widthigi oo kale 2.5 iyo 2.5 dad ka jarto isku noqonayso 5 cm 20 dad ka jarto 150 ayaa ku soo baxaysa. saas la mid ah dhinacii kale xagga korka for example yani grade beamka korkan inoo yaala oo dhinac dhererkiisu ahaa 15 cm dhinacna widthgiisu ahaa 20 cm. marka istiraabkiisi waxaad aragtaa in xagan 20 cm lagu siiyay oo ka timid 15 coverkii laga jaray 2 cm bad 2 cm bad oo intii shubku galayay ya yani xagan oo kale formworkiga waa lagu xiri intan oo kale birtii iyo formworkiga ama loo xibeen isku jiraan dabadna xaga shubka ka buuxsamo qaabkaas loogu talagalay. marka istiraabka waxaad aragtaa inay 150 ahayd designkan waa yani updated kii weeyaan lesson-ka hore xagan oo kale 200 baa iska qornayd xagan 900 in soo update gareeyay adiguna waxaad kala hubsataa in uu soo gaaray drawing-gigan saxda ah ee qaabkan u detail gareysan. okay that's that. kala markaan ka soo tagno birta istiraabka aynu isticmaalayno ama in xisaabino waxay noqon doontaa T grade beamka wanagi assignment exercise aan isku dirnay top beamka sidii si lamid ah hadda imika hal beam aynu ka shaqeynaa istiraabkiisa inta ku dhex jirta then ama waxaanu ka shaqeynaa grade beamka top beamkana sidii awalba ama hadda core and assignment ama exercise kaaga dhignay ayaad u qaadan doontaa maadaama same yihiin. okay hadii for example aynu aragno detailka istiraab 1 ku qoran waxaad aragtaa in uu leeyahay diameterka isticmaal number 8 center kun uu yahay 200 mm yani maxaan class-kii ku soo sharaxnay 200 waxay yihiin labada istiraab inta isku jiraan. haddana wuxuu ku leeyahay cutting length kan birta inta lagu soo jari doono waa 800 mm ama 80 cm. marka birta xagee ka timid yani birlaabkii detail kan oo kale markaad siiso for example waxay noqonaysaa widthigi oo kale 150 mm ama 15 cm dhinaca ka soo horjeedana 15 cm labada markaad isku geyso waa 30 cm dhinacan iyo dhinacan oo 20 cm markaad isku geyso yani waxa weeye maxaa la jira parameterka inaad xisaabisaa la rabaa on 2 times width plus 2 times length 2 times widthigi oo kale for example hadaynu kan dhahno waa 15 by 15
الغرفتي يعني 15 لو جي 15 waa 30 سنتي xagana 20 waa 40 سنتي 40 markaad isku geyso waa 70 iyo inta yareeda la soo laabay birtay hook length loo yaqaanay hadii 3D ku aragnana inta yar maxaan ahay 135 degree angle ka laga dhigay waa 10 سنتي guud ahaan waxaad aragtaa in 800 ay tahay marka xigay intaay cutting length bariska chiwilkeena bar length waa naqaana already waa la siiyay mar walbana saasa lagu siina dii aan lagu siina de kala charchar concrete cover ki birti sawiro intay soo laamaysa aad u sawiro dabadna aad go'aanso markii aad ogaato shubku intuu yahay okay maxaan niri marka detailkii marka saan loogu siiyo adu mar walba xagan aad ka soo qaadanaysa maxaa lagu dhahay cutting length marka maadaama ilownay sida stirrup-ka biraha staff-ka ama birahan stirrup-ka ee grade beam-keeni ku jira sida looga shaqeeyo maadaama hadda class ka horeeyay ay ahayd in aan ka soo shaqeyno ilownay waxaan sameeynaa in for example grade beam-ki on axis 1 2 3 aynu isaga intaan meelahan intaan ka soo istaagno for example right click intaan dhahno right click insert that rather aynu kaas kugu soo biro dabadna aad raado stirrup okay stirrup dabadna waxa rajinayna saa loo qoro stirrup okay then maxaan dhahay aad sameeyso diameter-ka isticmaalaysa xagan ku xusto okay for example yani imika ka aad hoos geysay umbu yani qofka u fahmiyaa stirrup-keeda marka grade beam-ki top left top right bottom maadaama kala lahaa birihi oo yani biro overlap sameynay top left iyo top right iyo bottom iyo birihi maxaa dhahay kuwan ahaa iyo xagan u xusisa then diameter-ka waxa isticmaalay 8 haye bar length-kana waxa taqaanaa in lagu siiyay 800 oo millimeter 800 sideedan u qoranaa for example number of bars marka saynu xisaabina number of RC members isagu waa 3 waa taqaanaa yani 3 beam oo kala duwan oo axis-deeni saaran waxa taqaanaa in axis A2 1 2 3 uu saaran yahay beam-kan inuu ka shaqeyno marka hal beam inuu ka shaqeyno inta kale maadaama typical yihiin maxaanu sameeynaa RC members-ka inoo jira ayaa 3 ah marka number of bars-kan saynu ka shaqeyno waa inaan maxaan dhahay xagan inta soo galno for example aan dhahno is equal to round up and isticmaalno okay round up then number-ka aynu qorno number-kii marka seen u qoraynaa waxay noqonaysaa for example saan tiradii u ogaano waxaynu sameyn doonaa stirrup-ka ku dhex jira beam-kan ma aragtaa yani column-kan b axis-yada waxaad aragtaa inuu A B iyo C yahay marka meelaha A iyo B iyo C maxay ka yihiin yani column-ya taagan xaga column ba taagan xaga column ba taagan marka actually la soo eego yani waaka for example hadii aan tagno dhinacii kale weeyaan be kani 3 2 1 saas la mid ah hadii section-ka xagan kale laga siin lahaa ama waa kan tiirar ba xaga taagan marka waxay ka dhigan tahay stirrup-ki saad u xisaabiso column-ka inta marka la soo gaaro stirrup ma galay birti yareed ma galayso oo xaqii uu column-ka ka taagnaa ama laga istaajinay marka maxay noqonaysaa column-ka labada column inta u dhaxaysa iyo cabradooda soo qaadana marka hadii for example dimensions-ka lagu siiyo linear inta for example soo qaadato hadii aad ku tuhmayso drawing-ga aad isticmaalayso inuu sax yahay for example xagan oo kale waxaad aragtaa inuu 5 mitir ina dhahay dhinacan kalena for example inay tahay ilaa column-ka waa 4 mitir waa sax oo qolalkeeni baan ka ogaan karnaa for example qolalkeena ahaa labada column dhexdooda inuu kana maxaan dhahay 4 mitir ahaan jiray oo gidaarkii column-ku kiisku toosnaa kana waa 5 mitir in case hadii aan qaabka lagu siin for example waxaad ku soo ogaan kartaa center-kii kala 5 mitir iyo 20 lagu siiyo center column-kaaga waxa taqaaniin dhinacana 10 ka xigay dhinacana 10 ka xigay marka 10kan iyo 10 ka xagan ka soo galay dad ka jirto 5 mitir iyo 20 5 mitir baa ku soo haray marka waxay garan tahay dimensions-kan baan soo qaadanaa for example waxaan dhahaynaa round up 5 plus haye 4 waliba qows inaad iyagana ku xidho sorry intaad xagan soo istaagto qows ka horeysi divided by maxaan dhahay maxaa loo divide gareyn yani maxaan u qaybinaa waxaan rabnaa 5 mitir haddaynu gaar uga soo shaqeyno karnaa waxaan dhahaynaa 5 mitir oo loo qaybiyay 20 senti way isku jirjiraan leeyri oo ka dhigan for example inuu xagan column ka taagan yahay yani imka kiiskeena si aan si fiican ugu faahno hadan move soo qaato on illa meelaha soo istaajiyo yani waxa la rabaa waxaanu ka sheekeynayna waxa weey waxa fiicneed okay meelahan oo kala soo istaaji adu sidaas ba okay sida laga hadlayo inuu imka yani sameeyna waxa weey iyadoo column-kan uu jiro
dhinacan spanka aad haysto 5 mitir yahay maadaama oo maxaan stirabkii columnkii meesha ku aadan uunan dhaxmarin waxaan rabnaa in xagga aynu eegno inta xabbe ku jirta marka inagu deesameyn jirnay markaan birahan ka soo shaqeynay saano ogaanay inta xabbe dhinacan ku jira haduu qolku 5 mitir yahay 5 baynu qaybin jirnay inta la isku jirsiinayo sida si lamid ah waxa taqaanaa marka stirabka saynu ogaano spankan 5 mitir loo qaybi 0.2 baan dhahaynaa marka hadii dhinacan aad ka shaqeynayso hal mar maxaa ku diiday inaad 5 mitir iyo 4 mitir isku geysto حاجات إمك يعني هذا هو بين دونا مرنا شنو قيب 0.2 مرنا أفر 0.2 وقيب تبينا نتيجة كوسا بحلا أركي دونا مركز 0.2 إنه ده هنا حاجة يعني 0.2 بينو قيبنا for example تبينا plus 1 بين ده هنا هالكيلو جينشري كوما 0 تبينا قوس انتر بين ده هنا مركز أفرتني لح مركز دي for example أفرتني لح ده حب حاجة كتمينا لأن الكالكولاتر حاجة كقرنه حاجة دي أنت هاي براها استيراب كي كوتشيرا A iyo B inta u dhaxaysa oo ka dhigan columnka ilaa xaga oo 5 mitir loo qaybi 0.2 iyo 4 mitir loo qaybi 0.2 waxay soo baxaysaa inta xaga ay noo soo baxday 46 calculator hadii aynu tagno for example xagan 5 loo qaybiyay aan dhahno 0.2 waxay la mid tahay 5 xabo haye 4 loo qaybiyay hadaynu dhahno 0.2 xagan xadaragta 20 5 iyo 20 isku waa 45 iyo halkii aan ku darsanay ahaan jiray waxaan dhahay markii aan formuladii baranay maxay ahayd number of parts so length of span loo qaybi spacing of parts loo qaybi hal iyo xabadaasina ka timid inaan isla fahanaan marayn dabadna for example diameter kan inuu waxaad aragtaa format gareysnayn marka diya for example aan kan saa ugu soo jiido korka maadaama format gareysnayn waxaad aragtaa inuu inta isku ka dhuftay taas wata marka for example dhinaca kale